السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا maanta waxaan kaga hadli doonaa walaal qaar ka mid ah goobaha aanay cadceedu ka dhicin habeen iyo maalin midnaba. Haddaba miyaanay weli ku soo marin maalin aad jeclaysanaysay inaanay qorraxduba dhicin oo ay maalintu dheeraato? Haddaba hadday jawaabtaadu tahay haa oo aanu hamigaasi ku rumoobin, dadka qaar ayaa nasiib u helay inuu u rumoobo, kuwaas oo ku nool goobo aanay cadceedu ka dhicin habeen iyo maalin midnaba oo 24 saac halka inagu habeen iyo maalin aynu ka helno, iyagu intaba ay qorraxdu u soo jeedoon. bal haddaba ka waran haddaanad garanayn goor allaaliya gooraad seexanayso oo ay 24 saac cadceedu soo jeedo, haddii aad seexatana aanad garanayn gooraad soo toosayso. taasi waa jawaab ay tahay inaad naftaada uga jawaabto. intaa kadib, haddaba waa kuwee wadamada amba goobaha dhulka ka mid ah ee aanay qorraxdu ka dhicin? haynu wada eegna bal. wadanka koobaad waxa weeyaan Norway, waxaanu ku yaalaa waqooyiga dhulka amba North Pole-ka saad u taqaanaan, kolba. Norway waxa loogu yeedhaa dhulka qorraxda habeenkii, sababtuna ay tahay 76 maalmood ayaanay habeenba aragba, waqtigaasoo ka bilaabma bisha May ilaa iyo dhammaadka bisha July. qorraxduna dhulka si toos ah ayay ku soo dhacdaa muddo 20 saacadood ah 24 saac oo kasta. Svalbard, Norway, oo ah gobolka ugu dadka badan leh waqooyiga Yurub, qorraxdu waxay si isdaba joog ah u haysaa Abriil 10keeda ilaa iyo August 23keeda. wadanka labaad, Iceland. Iceland waa dhul aad u qurux badan, isla markaana waa jasiiradda labaad ee ugu weyn qaaradda Yurub marka laga yimaado Ingiriiska. Iceland iyadana waxaanay qorraxdu ka dhicin bisha May 10keeda ilaa iyo bisha July. qorraxdu wadankan si toos ah dhulkayga uguma soo dhacdo ee waxa ay ku joogtaa saqafka amba halkan inagu u naqaano faamalaydhada. waxa kaloo uu wadankani bixiyaa firfircooni amba nashaado aad u tiro badan, sida daawashada duurjoogta, daawashada nibiriga iyo sahaminta godadka iyo waxyaabo kale oo aad u tiro badan. gobolka saddexaad ee aan ku soo qaadan doono barnaamijkeenan waxa weeyaan Alaska. qorraxdu kama dhacdo gobolkan bisha May ilaa iyo dhammaadka bisha July. haddaba gobolkan la yiraahdo Alaska waa gobol aad u qurux badan oo la yaab leh. gobolka gebi ahaantiisu waa mugdi xilliga lagu jiro qaboobaha. Alaska waxa uu caan ku yahay buuraha marka uu barafku dul fadhiisto, taasoo samaysa midab burburaya oo qurux badan. haddaba guntii iyo gabagabadii muuqaalkeena ayaynu soo gaadhnay. haddii uu muuqaalku ka cajabiyo walaal, fadlan ha ka ilaawin inaad like saarto. intaa kadib waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.